Somaliland hannoolato. Somaliland hannoolato. حزبك كلية hannoolaado. إذا نولاado. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. marka ugu horeysa waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno shirkan sharafta badan ee ay isugu yimaadeen tartamayaasha qaaliga rag badan oo idin ka mid ah siyaasadda waxa laga yaabaa inay ku cusub yihiin rag badan oo idin ka mid ah waxa laga yaabaa inay waqti dheer ku soo jireen waxaan isleeyahay rag badan iyo dumar badan oo ka mid ah waqti badan bay ku jireen qaar badanina way ku cusub tahay laakiin meel maynan kala jirin waynu wada joognaa marka ugu horeysa maanta waxaad soo gasheen xisbi gaamuray oo ka dhiila dhaansaday inuu mucaarad soo noqdo muddo 9 sanadood waxaad kaloo ku soo biirteen xisbil xaakim 10 sanadood ay wax u dhaafeen waxaad ku soo biirteen ama aad u tihiin murashaxiin xisbi yaqaana sida loo tartamo iyo sida loo kala helo codka iyo sida la isu maamulo iyo sida loo wada shaqeeyo iyo sida qofka ka soo horjeeda la isaga celiyo xisbi intaba yaqaana yaad ka sharaxantiin waxaa idin hor fadhiya golihii wasiirada oo uu madaxweynuhu xukumo oo mandate-ka aanu haysanno ay qayb ka mid tahay in xildhibaanada golaha dawladda hoose iyo golaha wakiiladaba ee kulmiye la soo saaro oo la isdhinac taago oo la taageero oo la wado oo si macno leh meeshuu taagaba la isu garab taago waxaad haysataan xisbi gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo xogayaha guud iyo wixii alla ku daro kaleba ay diyaar idin yihiin inay idin taageeraan waxaynu ka soo gudubnay waa afayeenka hadalkiisu ma xisaabsana sida muddu iska qaataay sida ula socda siyaasaddii dawladduna waa dambaysaa maxaa looga gudbayaa halkaa waxaa looga gudbayaa inaynu noqonno ummad isku tashata mas-uuliyad kasta oo ina saaran waa inay noqotaa mid aynu gobolnimo iyo barinimo iyo Somalilandnimo intaba midba gacan ku hayno ragga halkan fadhiya iyo gabdhaha fadhiya way tartamayaan tartanka waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inaad ku wada guulaysataan xisbiga iyo dawladdiisuna waa idin garab taagan yihiin laakiin la kala badi orod samaaha baa la yidhi nin kastaana iyo gabadh kastana waxaa laga rabaa inuu iskii iyo shakhsi ahaan uu isugu talagalo oo uu garto in uu tartamayo waxaa jira haddana in xisbiga gudihiisu uu loo kali mararka qaarkood tartan hoosaad waa jiri karaa miyaan qariyaa kaa wuu jiri karaa laakiin waxaa loo tartamayaa si hufan oo nabadgelya oo ehelnimo oo walaalo ah oo istaageersi leh labada dukaan ay iska soo horjeedaan ama isku dhinacii waxna waa kala gataan waxna waa isku taageeraan waxaa loo baahan yahay taasina inay taa noqoto magaaladan aynu joogno waa magaalo qadiimi oo weyn dadkii nagu soo dhoweeyey taariikh badan bay leedahay qoladiina ka timid Laascaanood iyo Burco iyo Erigaabo way xukumi jirtay mar kasta magaalada Burco taariikhda ummadda reer Somaliland waxay u tahay meel aan la taaban karin Laascaanood iyo Burcaba waxay xukumi jirtay 1940 anigaygan idinla hadlaya awowgay mushaharkiisa Erigaabo waxaa laga soo wareejiyay 1928 waxaa Erigaabo halkan la keenay 1928 ayaa la keenay Burco
waxaad garanaysaa inta ay burco magaalo madax u ahayd dalkan 28 qaar baa hoos u eegaya ma khaldamina waa 28 ayaa halkan la keenay waana degmadii ugu horeysay ee ingiriis u aqoonsado degmo wax la yiraahdo district inta miyanu kala baqaynaynaa burco waa inaynu siino waa meeshii Soomaaliland lagaga dhawaaqay meenu inta kala baqaynaynaa marar badan maalin dhaweydin baa uu hadal qabsado wuxuu yiri haddaad burco taariikhdiisa rabtid ina koore weydii malaha 40 nin oo ugu caansanaa ayaan magacyadooda maalmaha ka mid tiriyay oo mid kasta uu yahay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliland ee noociisa hadda waa mararka qaar kood aniga burco waa la iga saaraa laakiin waa amaanaya aad iyo aad baan idin salaamayaa guud ahaan xildhibaanada iyo golaha wasiirada halkan yimid waxaan leeyahay doorashaynu galaynaa doorashada waa dawlad iyo xisbi waa leedin garab taagan yahay cid walibana iyaduna ha isku tashato xisbigana ha ku tashato xukuumadana ha ku tashato golaha wasiiradana ha ku tashato deegaankeedana ha ku tashato aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh